كلهم عن صاحب يركزوا دبادة برامج كيف لقينا سانس فورس تطبيقات كمان حلية كلا صاحب الله سعوتان برامج كوحنكو إجنا دعدين كوجوا وين عيارها شنطة ريال هو بين قرارات جروب يوحيابي كلا وحي صاحبنا تطبيقات كبرامج كحمرتي كو أحمد هليل علي تبرع كوحدة كبدا عقت جينيو sidoo kale ah tababaraya xulka kubadda cagta ay galmudug tartankii ciyaaraha kubadda cagta maamul goboleedyada gobolka Banaadir wax badan ka falanqeyn doona ciyaaraha toddobaadkan dhacay iyo horyaalka isbedelka jira ku soo dhawaada mar kale barnaamijka falanqeynta Sun Sports وهجاجة إنه كبر لنا برامج كده معلومة كسر برامج. وعدوا صاحبك الشعب لا أديك أستان سبورس أدي أهمتها اللي هذا وما صنتها كمان عندنا فرصة الغالية عن السيسي. أنا كبر لنا هوريال كإنجليز كبريمير ليج صدنا عيارة يا هذا الأمر أما تطبعت كي صدنات سديد عيارة يعني كهرسن أو كحوا وين يا تطبعت كان بدي سيتي يونايتد ليفربول ودي جوش كسر لوات ليستر سيتي دقيقة على كومن أي كلمة كأنت لبعد كجرتي جلسي ليريس يونايتد يدافع ويست هام جولدردا ما يونايتد يا وحود انتي إيفرتون sidoo kale Tottenham Arsenal waqooyi London Arsenal ayaa badisay ciyaaraha ayaa ahaa kuwa xiiso gooni ah leh وما سنت صاحبكي runtii isbuucan Premier League waxa isbuuc ugu xamaasada badnay maadaama hore hadda runta ka hadalno kooxda Man City waa way fakata liiradayada waxa loo dagaalamay waa kaalinta saddexaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta afraad sida lagu hardami lahay Chelsea waxay diyaar u tahay inay sanadkan afraad ciyaarsiinta maadaama macallin cusub ee kaysatay 12 ciyaarood ugu dambeeyay goolasho lagu dhaliyay ay yaraayeen ciyaarta ugu dambeeyay kooxda Ladies ee la gashay baraajo ayadoo waliba loo saadaalinayo in ay cudurdaar oo ka haysta dhanka Champions League Manchester United sida meesha ku cad ay West Ham waxay isku haysteen kaalimaha West Ham Madereeled Manchester United waxay ahayd afraad u sii dhici lahayd halka Leicester City ayadoo la filaynin in ciyaartan hogaankii ku labaysta kaalinta labaad aan meesha laga baxshay saddexaad u dhici lahayd Man United sidoo kale kooxda kubadda cagta Arsenal iyo Tottenham waxay ku hardameen garoonka Emirates kooxda Arsenal waxay laga hormaray gool oo caaqaba leh isbedel sameeyay laba gool ee dhaliday horyaalka Premier League sanadkan mid aad uga qiimo badan oo isbuucida horeeto laakiin aniga ahaanteeda fikirkan waxaan qabaa Manchester United iyo Leicester City waxay ku hardami doonaan kaalinta labaad mid galleed maahane horyaalkan waa dhintay 98 Man City loo yeetay Liverpool ka war kooxda kubadda cagta Liverpool dhaawac far badan ay galay dhaawacana laba u kala qaadayna mid waa daal xagga ciyaartooyda midna waa xagga daafaca dhaawacay galay aniga ahaanteeda maadaama aan ka dhigay booska difaaca inta badan kubadda cagta waxaan aaminsanahay Liverpool dibka ugu weyn wuxuu ka soo gaaray maadaama uu ka dhaawacmay Matip Gomez iyo Van Dijk waa saddexda nin oo kooxda la isku bedeli jiray Van Dijk wuxuu ahaa oo dhaxabad kooxda waa halka nin oo bilad ka soo qaatay muddooyinka dambe kooxdan iyo dhalintii weeraryahanada yaraatay sidoo kaleeto kooxdan waa koox aaminsanahay sanadka inay UEFA ka qayb gali doonto duulaheedmo waa Champions League sidii ma adiga sanadkan sanad ay Champions ku imaan karta ma aha Chelsea isbedel dhinaca tababarka gashay dhanka tababarka gashay ciyaaro badan oo form fiican sameeyay goolash laga dhaliyay aad u yar yihiin laakiin in oo Ladies ku akufo waxay ahayd macalinka tijaabo ka halaaday sababtoo ah markii aad la soo dheeshay Liverpool aad guul ka soo qaadatid kooxaha qaar aad dhibco fiican soo qaadatid Atlantic Madrid in guriga ugu tagtay Liverpool uga soo reedid in Ladies United abraaj la gashid wax qurux badan ma ahan muhiimadda waxay inuu focus ka saaro maadaama oo Champions League hoosta home asoo away inuu soo raayo waxa uu rabay inuu culays ka saaro inuu Ladies United koox yar waaye kaalmaha waxay ku jirtaa 17aad kaalmaha oo dhaxdhaxay ku jirtaa inuu meel iska saaro si oo dhibciis u bataan oon oga mid noqdo top 4 ka soo ku gal lahay waa beerdariyaan taagan dhibcahaas Jose Mourinho Tottenham maamulaya arinta sideedad ku jiraan 45 dhibcood ay leeyihiin laba ciyaar ay 28 ciyaar ay ciyaareen ayaga ka waran Tottenham iyo Arsenal iyo West Ham iyo Liverpool isku wala ku jiraan iyo Everton waa yaa ka soo qayb gali doona sanadkan UEFA maahane Liverpool Man City oo horyaalka la tagtay Manchester United iyo nimanka la yiraahdo Leicester City ayaa waxay ku tartamayaan kaalimaha afraad iyo saddexaad iyo labaad kooxii galay laakiin Arsenal Tottenham nimanka la yiraahdo Liverpool sanadkan waxay u ordayaan kaliya waa inay UEFA ka qayb galaan UEFA ay qurxiyaan Arsenal iyo Tottenham hal mid oo furan waa in labadooda mid kamid ah Champions League qaado si ay sanadkan ku imaadaan UEFA ay qaadaan si Champions ku imaadaan warar kale waxa kamid ah Sheffield United ayaa tababarahoodii iska burisay toddobaadkan 3 sano kooxda maamulayay waa kooxda ugu hooseysa horyaalka والله أنا ما هستان أنا هان ما بهستان بس صوبته مركي كوح ذا أي تاي كوح دقالة له
dhaqaalena maahan dhaqaalihii oo sida kooxaa weyn yihiin laakiin naadigan sanadka horeeto way joogeen sanadka kasii horreeday imaadeen isbedel macalinka asaga naadigan Serie A keenay hadda waa dareemi kartaa kubadda cagta ma ahan aniga meeshan ku dhashay iyo aniga haysan jiray isbedelku waxay taqaanaa kubaddan kooxda inay haysato waxa la yiraahdo form hadda macalinka Burnley oo kaleeto macalin waxa waaye fakti koowaad dhulka yeelay waa soo kacay marba waxa waaye haddii kooxda ay laga filaynin guulo badan haddii gaarigooda guuldarada ka badato waa qasab in madaxa ugu sareeya kooxda in laga taqaluso macalinkana sidaas sababsadaa misana waayahay afarta koox afarta sano geli kartay asli kartaa Premier League aniga waxaan aaminsanahay sanadkan kooxda koowaad inay noqon doonto Man City oo dhibco ilaa 92 ku qaadi karto horyaalka halka kooxda kubadda cagta Manchester United ku dhameysan doonto labaad Leicester City saddexaad Chelsea ayaan u asaadalnay inay kaalinta afraad ku dhameysan doonto waayahay dhinaca goolinta haddaan guda galno Mohamed Salah ayaa 17 gool leh Keane ayaa 16 gool iskale Bruno Fernandes 16 gool leeyahay Son oo Everton u ciyaara saddex Calvert-Lewin ayaa 14 iskale weeryahanada dhex maxaa ku dhacay kulliba weeryahanada ugu saameynta badnaa sanadkan Sadio Mane ku jiray Aubameyang ku jiray Lacazette waa iska nin ilaa 18 gool dhali karo laakiin aniga ahaan waxaan qabaa Mohamed Salah 17 gool oo aan lagu naqfin oo meesha la yimaado sababtoo ah 17 kaas gool mar laba lagu leeyahay hal dhalinayay mar saddex lagu leeyahay dhalinayay aniga aan marka waxa qabaa maadaama Mohamed Salah dhaawac uusan galin Harry Kane oo muddo ilaa 6 ciyaar 5 ciyaar ka mid kooxda ka maqnay sanadkan goolinta Premier League waxa qaadayo ciyaaryahan Harry Kane amisana Bruno Fernandes maalba tigiracdi geed ku saaran kullu badar goor ma la dhigaa saas darteed waxaan leeyahay maskiinkaas ka nastaan leeyahay waayahay halkaas aan kaga gudubno horyaalka Ingiriiska Premier League iyo xiisihiisa aan imaano horyaalka Spain ee La Liga oo asna kamid ah horyaalada markaasi ugu xiisaha badan Atletico Madrid oo 27 ciyaarood ciyaartay 19 kamid ah badisay iyo Barcelona oo 8 ciyaar ka badisay 27 kulan Real oo 17 ciyaar ka badisay 27 kulan Sevilla oo 26 ciyaarood ciyaartay laakiin 16 ka badisay ayaa kooxaha koowaad labaad saddexaad afraad ku jira 63 Atletico 59 Barcelona 57 Real Madrid Sevilla 51 ay leeyihiin horyaalka Spain isbedelka waa maasan tahay saaxiibkay horyaalka Spain 3 toddobaad ka hor waxa loo saadaleynaa Atletico Madrid waxay la kulantay laba bareejo marna guul darro ka horeedaa jirtay ciyaarta la soo dhaafay laba hel ku reeday hadda isbuucana bareejo ka shay Barcelona iyo Real Madrid isbedel ay sameeyeen awal farqigu wuxuu 10 dhibcood laga sareeyay game ahaan way haysatay hadartan wixii waa isku soo biishubteen waxa la isku imaaday in la yiraahdo Real Madrid waxay leedahay 57 Barcelona waxay leedahay 59 Atletico Madrid 10 dhibcood ku sareeyay maanta waxay taagan 63 dhibcood maadaama kooxihii ciyaaro oo baaqday ay way ka faa'iideysan weeday dhowr mar laba fursad oo muhiim ah haysatay ayadoo 7 dhibcood ku sareedo laba dhibcood laba ciyaar waxay haystay oo free mid kamidna waa laga raayay mid kamidna bareejo gashay dhibci waa soo yaraadeen Atletico Madrid waxa meesha ka baxday xisaabtankeeda in horyaalka sanadkan ay qaadi karto waxaana suurtagal ah labada kooxood ugu sareedo ugu taariikhda badan ee La Liga sida Barcelona iyo Real Madrid midkood inuu sanadkan qaaday aniga aaminsanahay gaar ahaan maadaama aniga waxa aaminsan inuu sanadkan qaadi doono macallin Messi Atletico Madrid ka war Suarez wataan goolyahooda waa hadda isbedel ma dhici kara miya wallahi wuxuu ku dhici karina waxay tahay waqtiga ugu quruxda badan waa xilligan hadda Man City oo kale waxay ku heedaa dhibco ilaa 12 dhibcood gaarayo saas oo kaleeto hadii waqtigan oo kale jooga 10 dhibcood ama 8 dhibcood wax ka sareeya aan leedahay kooxdan ay koox awood la tahay waa dareemi kartaa laakiin maadaama hadda ay dheeleen 27 ciyaarood 27 kaas ciyaarood ay dheeleen waxa dhiman 12 kulan 11 kulan dhiman 11 kulan ma wada awood uma wada inay wada reedo mid kamid waxa uu sii dhiman Barcelona hadda Real Madrid isbuuc la soo dhaafay laba isbuuc kor waxay la gashay bareejo waxyaalaha dhibcaha marka dilay kamid tahay Atletico Madridna waa eraga xumo ay u dhimanayaan aaminsanay Messi 22 gool ay leeyahay madaxweynaha cusub ee kooxda la wareegeen oo waxa la soo celiyay Joan Laporta oo kooxda 2003 ilaa 2007 ka shaqeynayay markii ugu dambeysay waa 2010kii 7 sano koox joogay markaas saxiix waaweyn oo kooxda ku soo kordhiyay kamid aha Ronaldinho iyo Samuel Eto'o ayadoo markaas kooxda akademiyada ka soo baxayeen Messi oo 20 jir markaas aha qatar lahaa kadibna ku guuleystay 3 xijaaraha Ballon d'Or Xavi oo daadiisa ku jiray Iniesta ciyaartoy waxay haysteen qatar ah maxaa Messi waa tuu hadda dhahay waa baxa marka Joan Laporta waxa kamid ah dib doorashadiisa Messi ay yihiin dad isku dhow kooxda joojin karaya doorashadan isbedelka Barcelona ayadoo kooxdan deyn badan lagu leeyahay saaxiibkii waa maasan tahay hata hore taariikhda Barcelona waa mid si dhaceedo sababtoo ah kooxda sanadka la soo dhaafay Champions League waxay ku hartay si qaab daro badan hal koob kamid ah sanadkii la soo dhaafay Copa del Rey Messi qaadin horyaalka waa laga qaaday Champions Bayern Munich si oo xayaat xumo u reebtay
hadeertan sidoo kale horyaalka waa laga hayaa Copa del Rey nasiib wuxuu yeeshay inay final tagaan sidoo kaleeto Champions League waa laga soo cirib tiray miisin wuxuu ku jiraa xilligii da'da oo ahayo hadeertan waa inuu markaan 2 sano ama 3 sano dhaqaale oo raadsan inuu galamahane jirkiis awood uma lahan inuu hadda kadib dagaal ama ilaa iyo waxyaalihi laga barto oo sameeyo hadda xalay kaleeto ciyaar qurux badan oo soo bandhigay 2 gool oo dhaliyay laakiin asaga gool oo dhalin kara gool oo caabi kara laakiin miisigi la yaqaanay iyo wixii la yaqaan meesha ma sameyn karo John Laporte way fiicnaalad inuu 4 sano kor 3 sano kor markuu miisi hay 30 jirka inuu ku soo biirnaadigan laakiin hadeertan la joogo wuxuu ka bedeli kara male hadii kooxda la keenay maanta la joogo ciyaaryahan qiimo lana waa inuu qaataa miisi mishaarku qaadanayo mid kala mid ah haddana ma dhici karto sababtoo ah kooxda kubadda cagta caalamka idil waxaa ka soo waajahday waxa la yiraahdo dhaqaale xumo coronavirus wuxuu ka mid noqday waxyaalaha la dega kubadda cagta أنا مركب وحان قبا ميزي 25 جول إلا 36 جول ودالي كرا لكن أود دنبيتو أو ميزي جامبيونس ليج سنة سoo socdo 2 sano soo socoto oo koox ku maamulo doono ma leeyahay laakiin Laporte waa gudoomiye Sportis wuxuu dhashay dalka Ingiriiska ciyaartoy badan oo qiimo loo keenay kooxda intuu joogana waxay ahayd koox laga filan karo finaal ama semi finaal ama champion qaadi karto laakiin waqtigan la joogo Laporte wuxuu ka bedeli karaa maadaama xaaladda kubadda cagta caalamka isbedeshay miizina oo waqtigiisa dhamaaday waayahay dhinaca goolalinta ayaan gudagalaynaa horyaalka Spain Messi 21 gool ayuu leeyahay Luis Suarez ayaa isna iskale 18 gool Benzema xogaa kor u soo kacay 15 gool yimid sida hore kugu sheegay Lionel Messi waqtigan la joogo sanadkan ku xigba horyaalka Messi jooga macquul inuu qaado laakiin midkan goolalinta ilaa 25 gool 26 gool Messi ku qaaday aaminsanahay maadaama Luis Suarez iyo kooxda kubadda cagta Atletico Madrid waqtigooda ayaga ay iska beerdareeyeen marar badan oo waxaa jirta laga filayo Luis Suarez inuu hat-trick iyo koox badan ka soo dhalay meesan dhicin horyaalka faktikooda oo kacsanay dib u dhaca imaaday waxaana aaminsanahay horyaalkan Barcelona iyo goolalinta inay isku qaadi doonto waayahay aan gudagalno horyaalada kale ee qaaradda Yurub iyo waxyaabaha kale waaweyn horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A ayaan gudagalaynaa iyadoo toddobaadkan ciyaaro dhaceen Ronaldo oo isha lagu hayay oo kooxda maadaama kooxdiisa wareegga 16 ku soo hartay markii saddexaad oo Ronaldo soo ciyaaray labadii jeer isku dambeeyay ku haray ayaa ciyaarahan kamid ah inkastoo kooxaha ka dhisan magaalada Milano ay yihiin kooxaha dagaalka adag horyaalka Italy Serie A oo la kulmay Ronaldo Farino kala kulmay ciyaartooyga kubadda cagta Brazil Pele oo rekoorkiisii dhaafay markaan ka hadlayno dhinaca horyaalka 65 dhibcood leedahay Inter Milan ku soo xigto Conte 6 dhibcood leh xogaa had moodaa in kooxda Antonio Conte cararayso Juventus 55 dhibcood leedahay 5 waa 10 dhibcood ayaa horyaalka markaas kor ka fiirinaysa Conte 2 dhibcood Atlanta iskale Napoli ayaa iskale ayadana konton inkastoo Juventus game ay haysato Napoli ay game haysato oo hal game ay leeyihiin isbedelka ma dhici karaa iyadoo todobadii sare hore aan ogeyn xiriirka waa maasan tahay horyaalkan Talyaaniga waxaa la saadalaya markii 20 kulan la dheelo la saadalaya kooxda qaadida sababtoo ah horyaalada kale caalamku ka duwan yahay sanad walbeetana kooxa loo yaqaan inay qaado kooxda Juventus waxay soo bilowday 2011 ilaa waxay qaaday 2020 mar walbeetana waxay ku heen jirtay xilligan oo kale markii la gaaro dhibco gaara ilaa 10 dhibcood waana koox awood leeyahay 3 sano ugu dambeeyana waxay soo maalanayday ciyaaryahankeeda Ronaldo wuxuu u suurtagelay inuu laba horyaal xiriir u qaado nasiib daro macallin Conte shaxda waa bedelay nidaamkii iyo qorshihii kooxda waa bedeliyay wuxuu keensaday ciyaartooy aad u da'yar yar wuxuu keensaday rag badan oo kooxda ku soo kordhiyay aniga ahaan waxa aaminsanahay horyaalka Italia sanadkan wuxuu yaalaa magaalada Milano gaar ahaan Inter sida sharaf lana ku qaadeeda Ronaldo waayihiisa kubadda cagta hadduu ay kii champion-ka wuxuu soo gabagabo xilliga Real joogay laakiin xilligan hadda waxay inuu ku dagaalamo goolalinta horyaalka Talyaaniga sidoo kale uu ku dagaalamo horyaalka Talyaaniga isku daataa labadiiba hadda waxaa umaleedaa Lukaku inuu kaabi ku hay dabada ugu hayo in hat-trick laga dhaliyay Cagliarina kama dhigno inuu yahay xeeheed nin horyaalka ku tartamay sababtoo ah waa adigoo qamiistii lagu soo ceejiyay habeenka sabdigana ku ciil baxday naadi yar oo kaleeto marka waxaan aaminsanahay rekoorka Pele inuu gaaray oo dhaafayo wax lagu jiifay haddana oo aaminsanahay Ronaldo inuu gaari karo ilaa iyo xad ka bax ilaa iyo kun gool oo gaari karo hadii si kale loo fiirsho waayo ciyaaryahan isaysta laakiin maanta dan la joogo mudnaanta ma la siin karo Ronaldo in champion dambeeto oo gacan ku dhigo warar waxa leeyahay waxa macquul ah soo laabto inuu Real Madrid ku laabto waxaan loo dhigi karin Real Madrid xilli waa jirta ay laftigeeda ay jirkeeda caafimaad qabay oo diyaar u ahayd inay isla shaqeeyaan waqtigan la joogo Real Madrid ayada waxay ku jirtaa gacan gambad hoos ku jirtaa naadi hoos ku jiray nin hoos ka soo orday isma qaadi karaan aaminsana Milan la geenay leeyahay markaa koobkan Inter iskala macallin Conte qaatay isbedelka kubadda cagta adduunkeena kamid tahay
dhinaca goolalinta Ronaldo saa sheegtay 23 gool uu leeyahay goololina aad ugu tartamaya 19 gool Romelu Lukaku leh 16 gool waxaa iskale Morial Atlanta oo ciyaaran Martinezka kooxda Inter Milan oo kooxo waaweyn ay doonayaan 14 gool uu leeyahay dhinaca goolalinta dagaalka goolalinta dagaalka jiro farqiga awal waxa hal gool Ronaldo maadaama 3 gool oo dhaliyay isbuucan Lukaku hal gool oo dhaliyay wax badan ayaa isbedelay aniga ahaan waa isdhihi karaa Ronaldo goolalinta waa qaadi karaa laakiin dagaalka ugu badan wuxuu kala kulmaa saaxiibkiisa Lukaku waa ka go'anta sanadkan inuu wax badan taleenaya ka bedelo maadaama Inter ay isbedel badan sameeyay Juventus ay dishay AC Milan ay garaacday Rome ay garaacday Lazio ay garaacday kooxii dhan waxa waaye markaan dhinacay wada safay ka wada mareen anigu marka waxaan niyad ahaan iyo fikir ahaan waxa aaminsanahay horyaalka goolalinta Ronaldo haduu qaadayo inuu hal gool ama laba gool ku qaadayo sidii quruxda badneed ama goolashii dheere iyo wixii inay soo dhamaadeen Jarmalkan galayna Bayern Munich 58 leedahay 54 RB Leipzig Wolfsburg 48 Frankfurt 44 42 Dortmund ayaa iskale ciyaartooyga lagu doonista badan Yurub hadda lacagaha ugu badan lagu rabay Haaland ayaa ciyaara Dortmund booska shanaad ku jiraan kooxdiisa inkastoo hadda wareegga sidamaadkii u soo baxeen tartanka Champions League Bayern 58 leedahay RB Leipzig 54 leedahay waxaan xisaab gali karin hal waxyeelood waaye oo laga hadli karin in horyaalka Bayern Munich lagala sheekaysto kooxaha qaar RB Leipzig iyo kooxo lamida aan waxaan qabaa ma ahan wax jiro haddii booska RB Leipzig ku jirtay ku jirtay Borussia Dortmund kale waxa imaan lahaa Jalen Jaamacules koox walbeetana ciyaaryahan walbeeto maanta Bundesliga ka dhigay wuxuu ka meenoo Bayern Munich u dheelo Bayern Munich waa labada sano ugu dambeeyay kooxda ugu dhaqdhaqaaq badan ugu goolasho badan Yurub wax ka dhalido aniga marka fikir ahaan waxaan qabaa horyaalkan Bayern Munich qaadan doonto arinta cajiibka waxa waa dhinaca goolinta horyaalka Jarmalka Robert Lewandowski 32 gool leeyahay ma jiro weeraryahan dhali oo shanta horyaal ugu waaweyn qaaradda Yurub ka ciyaara 32 gool leeyahay halka Haaland uu san leeyahay 19 gool waa soo laabay Haaland ciyaari ugu dambeeyay gool dhali Andre Silva Eric Frankfurt Milan Sevilla soo ciyaaray sana 19 gool iska leeyahay ciyaartooyga Weghorst oo Wolves ugu ciyaara 16 iskale Lewandowski 32 sano Lewandowski waa noobaha 3 sano ugu dambeeyay goolasho badan qaaradda Yurub laacibka ugu fiican adduunka uu yahay sanadka dal soo dhaafaya kabta goolinta waxa maleena waxa ka qaaday Giro Immobile sida aaminsan wasaga ilaa 36 gool dhaliyay aniga marka waxaan qabaa Lewandowski ilaa 40 gool oo ku qaaday horyaalka Bundesliga sanadkan 8 gool dhiman haddoosan ka badin 8 gool asaga waxa u sahlan tahay inuu 4 gool 4 ciyaarood ku dhaliyo hatta way uga sahlan tahay haddoo laakiin goolinta 40 ma ka soo marayo sababtoo ah waa ciyaaryahan awoodo inuu kubadda dhiibto dhaqaaqo bilizon dhali karo rigoor dhalinayo madax dhalinayo shoot banaanka dhalinayo farsamadiisa fiican tahay waqtigan la joogana waa ciyaartooyda ugu firfircoon kubadda cagta xaggan noobaha dheeshay فرنسا أن قد قالنا عشان تقول أوجا بين قارات جنوب ليل لحن سدح نبعود اللي هذا هاي PSG لحن ليون لحن مناخل كنت اللح كنت بلاي أفرتنيشن وكوحدة مقصية أفرتنيشن عشان تكوحات مده حواي اسكت بعيهن أفريقيا مده ليل PSG ولا قبل عيارتي هذا لو جول لو قرعي PSG ليون مناخل عيار بريجا قرن تبعت كان كورن هريالك لحن سدح لحن كليه هريالك سنة كان أو فرانسيسكا أول waxaa sidoo kale macna daro ku qaadan jirtay Paris kubadda cagta waxyaalo badan isbedelay aniga ahaan waxa aaminsanahay horyaalka sanadka Faransiiska waxa qaaday kooxda kubadda cagta Lyon Talyaanigu waa isbedel ka dhacay Jarmalka Faransiis isbedel ka dhacay Jarmalka muxuu ugu dhicay Jarmalka wuxuu ugu dhici waayay wax kale ma ahan Jarmalka kooxa waxay ka tahay buur in buurtaas la jabshan waqti badan ay qaadanaydaa Juventus buurteeda macal Conte ay imaaday buur kale oo ka agdhistay mar haddii dabaqaaga Burj Khalifa la yiraahdo inta laga dhiso dabaq kale Burj Arab lahayo meesha waa ka baxeeda kooxda marka waxa waaye Bayern Munich ciyaaryankii oo Bruges u soo baxay ida qaadanaydo ciyaaryaanka u soo bax Bayern Leverkusen ida qaadanaydo hadda miiska Haaland u saaran awood u leeyahay inay qaataan sababtoo ah shuruuc waxa jirta kubadda cagta Jarmalka u taalo ciyaaryaanka qiimo leh hadii la gadayo kooxda Bayern Munich hadii u baanto in laga gado laakiin maanta inta rin u jooga ma laga gadi karo Juventus xasuusteeda waxa ma jira ciyaaryahan weyn oo Jarmalka ciyaara oo dibadda yimid oo aan Bayern Munich ka soo tagin ciyaartooyda badan sida Toni Kroos oo kale waxay markay soo qaadayay Kroos waa ciyaaryahan laga maarmo oo aragtay asna dal badan oo baxo laakiin badanaa kooxda saxiixda markay dhacayaan gudaha Roberto Lewandowski waa tii ku helan markii dambe free Mario Götze xogaa lacag fiican ku helan marka Bayern xasuusteedu waxaad moodaa inay san jirin bi ciyaartooy weyn oo laga iibsado Jarmalka dhilay waa wax jira waaye Bayern Munich ciyaartooyda aysan qaadan oo qaranka Jarmalka foomka fiican ka haystay waa 2 iyo 3 waa dad la tirin karo ciyaartooyda ugu qiimaha badan kubadda cagta dheesho Jarmaligana
waa ragga ugu madaxda sareeya Jarmalka nin walba oo Bayern Munich ciyaaro oo qaranka ka dheeli jira markuu imaado naadiga oo 5 sano 4 sano 6 sano dheelo waxa lagu daraa maamulka kooxda saas darteed ciyaaryahan walba wuxuu ku haminaa inuu naadigan imaado oo boos joogta ka helo oo ka ciyaaro si qaranka uga mid noqdo kadibna waxa u suurtagelayda inuu kooxda markaas oo maamulkeeda noqdo David Alaba ka tagi doon kooxda sanadkan David Alaba tagistiisa wax walaas ka imaanaydo sababtoo ah championka meel fiican ku jiraan horyaalka ayaga dhibco fiican ku hayo haddii oo tagana booskiisa waxaa jooga ciyaaryahankii reer Canada oo aad ku xawaariis dheereeyo Faransiiska dhinaca goolinta Ken Mbappe hogaaminay Memphis Depay 18 Fowlan oo Monaco ku ciyaara 13 Bernardo oo Monaco ah ayaa 13 gool iska leh macallin waxa rabaa inaan ku weydiiyo hal sabab waxa jirto marka hore central forward ciyaartooyga weerarka dhex ah ayaa ahaa jiray mar walba hogaamiyaasha goolinta hadda ciyaartooy winger garabka ciyaaraya ayaa ah kan goolasha ugu badan tusaale ahaan marka Ingiriiska imaan oo kale Bruno Fernandes Mohamed Salah ciyaartooy waxa waaye Harry Kane had soo galay saddexaad oo ciyaartooy central forward ah markaan Spain markaan tagno Messi xogaa ciyaartooy iska open ku jira oo goolinta ah Talyaaniga Ronaldo ciyaartooyga Lautaro Martinez ku jira Lukaku somehow asan ahayn ciyaartooy central forward ah Jarmalka saas Jarmalka central forward sax ah Roberto Lewandowski Haaland laba ciyaartooy oo dhex ka ciyaarto weerar dhex ah waa goolinta Faransiiska Memphis Depay oo garab ah Mbappe oo garab ah ayaa maxaa isbedelay waaga hore kubadda cagta waxay taagnaan jirtay nooba taagan oo maanta la sugo taysta iyo rafaad badan oo kubadda cagta lagu dhex jiray aniga hadda waxaan qabaa haddii ciyaaryahan Aguero oo sanadkan caafimaad qaba kooxdiisana form fiican ay leedahay dartaan waqti fiican qurux badan ku jirto sababtoo 3 meelood 2 meel bar kooxda ka maqnaay 28 ciyaar leelo xaal macquul inuu 4 ciyaarood kamid oo san dheelin oo ka badan oo san dheelin haddii sanadkan Aguero oo joogi lahay asagoo nooba sax ah ilaa 20 gool sanadka la lahay laakiin kubadda cagta caalamka oo isbedeshay ciyaaryahan ku ka dhiibasho badan ka dhaqaaq badan maanta oo gool ka dhalna in Mbappe oo dhaliyo goolal intaas dhan waxa keenay maadaama uu yahay yar oo farsamo badan xoog la badan kooxdana ay tahay koox kubadda ciyaareeda kubadda aad u fiican waxa u sahlan markii inuu ninkaas garabka ciyaarayo inuu mar walba goolasho dhaliyo sidoo kaleeto intuu Neymar maqan yahay wixii ragooraha kooxda leela asaga helayo oo dhalnayo waxa macquul 4 ragoor 3 ragoor in ugu jirto hadduu Neymar joogi lahay meesha 18 ka leeyahay 15 14 saacadan la lahay anaga misanahay halka Mohamed Salah oo yahay ciyaaryahan Firmino oo u sameeyay amba lambarka 9 jooga laakiin wuxuu u sameeyay sida oo Mohamed Salah uga caawin lahaa gool dhalinta marka kubadda cagta iskaasho ku soo ururtay ina booska noobaha joogtid ina garab sata ka dheeshid kuma xirna mar walba tagista goosha ku xirantahay hadda horyaalka Italia oo kaleeto sanadka la soo dhaafayay Ronaldo iyo Sergio Immobile isku goolal ahaayeen isku gool maan hal gool oo dheeray Ronaldo laasi labo ka dhaliyay hal oo dheeraad daqiiqadii ugu dambeeyay Ronaldo waxa laga dhaliyay Rigoro Immobile helay kabacdina goolasha Ronaldo dhalin waayay Sergio Immobile dhaliyay gool badan sanadka ka soo reeday Quaresma la qaaday goolinta Ronaldo sanadkan inuu horyaalka Talyaaniga isku joogo goolinta Talyaaniga oo qaado wax weyn u tahay marka ciyaaryahanka inuu garab ka ciyaaro inuu ka ciyaar lambar 9 kuma xirno qof walba raadintiisa iyo dadaalka dishtaa sidoo ku tago ee ku xiranta dadaalka ku xiranta waaya barnaamijka waxaan kusoo gabagabeynaa ciyaaraha laba ciyaar caawa jira oo tartanka Champions League lugta labaad wareeg 16 Borussia Mönchengladbach ayaa marti u ah Manchester City kulanka 2-0 laga soo badiyay kooxda Jarmalka ah Puskas Arena ciyaarta nabada ciyaar ba Hungary ka dhacaysa sabab la xiriira socdaalka Ingiriiska imaanaya ee Jarmalka tagayo lahaki iyo socdaalka Jarmalka tagay Ingiriiska tagay waa laba wadan oo aad xaaladaha corona aad u saameeyay Borussia Mönchengladbach ma jirto wax dhibaato ay qabto ciyaartan Manchester City ciyaartooyga Gladbach ayaa lixda ciyaar ugu dambeysay Puskas Arena ay ka dhacaysa ciyaartan sabab la xiriir Covid ayaana loo doortay in ciyaartan ku dhacdo ka waran Manchester City Mönchengladbach soo laaban kara waxay isku soo laaban karaan kooxda kubadda cagta Man City form fiican ku jirtaa waqtiyadan oo kale meelahan oo kale inay ku harto laguma baranin ayadii ilaa sama final isdabari kartaa waana kooxda kaliya sanadkan aan isdhihi karo waa ugu kubadda heesasho badan tahay caalamka marka laga saaro kooxda kubadda cagta Bayern Munich saas ee taana waxa aaminsanahay home away galabtii la garaaci doono ciyaartan ee kooxda Mönchengladbach ee ka hooyin doonto gurigeedan u laaban doonto Real Atlanta ayadana saaxiibka Shablo waa maasan tahay hal yabar ay ku soo badiyaan Real waxa dhan caaw aan ka sugaa wax kala maan in ciyaarta Atlanta iyo Real Madrid aniga ahaan hadda waxaan ku sheegaa kooxda kubadda cagta Real Madrid caaw Champions League inay ka hareyso waxayna ku hareedaa hal sababtoo ah Real Madrid way
aad uga daalan tahay koobkan. Atlanta tiyada horyaalka Italy laga soo badiyay todobaadkan. waa laga soo badin karaa waana laga reen karaa. Real Madrid buu reeday aqursa xalal lagu dhilay aqursa laba hal ku reeyeen waxaana taas kulay wax kale ma ahan. Atlanta markii ay joogto gurigeeda garoonka ay ku ciyaaraydo garoonka ay wuxuu ku ciyaartaa sanadkan garoonka San Siro ku ciyaartaa championka markii laba isbuuc kor lagu ciyaaray garoonkaas hali ebre ku dhamaatay ciyaarta Rosena qaateen daqiiqadii horeeto. Real Madridna labada sanad ugu dambeeyay qaadbar wuxuu ugu horeeyay gurigeeda aniga aan waxaan aaminsanahay kooxda kubadda cagta Real Madrid caawa in 3-1 looga reen doono. 3-1 looga reen doona. Weena ka hareerada Champions League. waayahay waa arki doonaa macallin waxa dhaca. warar kale waxaa kamid ah ugu waaweyn Paulo Dybala Juventus ka soo tagay horyaalka Ingiriiska oo imaana leeyahay masaka tababarooda xabsiga loo taxaabay. baaqiis German Messi rabaan inay wax alla wixii ay ku heli karaan ay ku soo qaataan. Chelsea waxay diyaar la tahay in team winner oo kamid noqdo heshiiska Haaland ee kaga soo dhaqaaqayo Dortmund. Man United sidoo kale waxay la hadlaysaa ciyaartooyga Danny van de Beek oo sheegay quusa taagana Arthur Dybala aan ka bilaabo ciyaaryahan Dybala sanadkan wuxuu ahay ciyaaryahan aan ka soo muuqan Serie-A Talyaaniga inta badan dhaawacyo iyo arrimo badan la xiriiro problem. aniga waxaan aaminsanahay hadduu ciyaaryahankaas ku soo biiro kooxda kubadda cagta Manchester inuu waqti fiican la qaadanayo walow kooxda Manchester maanta booska oo Dybala u rabto oo jooga Bruno Fernandes oo ah hogaamiye fiican laakiin maadaama Pogba uu tagayo waa Tottenham iyo Liverpool iyo kooxo badan oo tagana waliba kooxda kubadda cagta Liverpool oo taga aad uga soo muuqana sababtoo ah Liverpool ma haysto lambar diyasho fiican oo kubadda gaarsiin kara saddexdan striker sidoo kale labada nin ay sheegto kale Werner iyo Haaland wax is dhaamaan ma leh noolba meeshiisu ku fiican yahay Haaland hadduu imaado Chelsea wax oo dhaamayo Ilaahay abuurta ma jireedo mana aan ciyaaryahan ka bixi kara maanta Premier League waxaan taaganahay inay Chelsea iska haysato Wernerkooda haddii lambar 9 keensaneedo inuu leeyahay dhankaasi Harry dad la yaqaan. Macallin Axmed Hadi aad oo maasan tahay barnaamijkii falanqaynta ayaa halkaa ku joojinaya saaxiibayaal oo ku maasantiin daawashada barnaamijkeena.